jaamacadda abraar waxa ay sannado gudahood kaga mid noqotay jaamacadaha ugu caalamisan soomaaliya waxa ay dadaal badan ugu jirtaa ka mid ahaanshaha jaamacadaha ugu caalamisan afrika waxa ay ku taallaa magaalada muqdisho waxay ka timid aasaas ahaan mu'asasada imaamu shaafici oo la aasaasay 31 sano ka hor halkudhigga waa tusid iyo taabsiin kuna dhisan tayo waxbarasho iyo akhlaaq wanaagsan jaamacadda abraar waxay bixisaa kulliyado kala duwan oo aad ka diyaarin karto gudaha dalka iyo dibaddiisaba waxay xiriir la leedahay jaamacado badan oo ku yaalla caalamka arday badan ayay u suuro gelisay in ay masterka iyo PhD-gaba ay ku diyaariyaan meel ka baxsan dalkeenna Soomaaliya jaamacadda waxaa la aasaasay sanadkii 2014 waxaadna ka baran kartaa kulliyadaha aad kaga heli karto shahaadooyinka bachelorka masterka iyo PhD-ga xarun cilmi baaris iyo tababar ayay sidoo kale leedahay waxyaabaha hiigsanaysa jaamacaddu waa waxbarasho tayo sare leh oo heer cilmi ah kuna salaysan tusid iyo taabsiin jaamacadda waxay aqoonsi ka haysataa wasaaradda waxbarashada ee dalkeenna midowga jaamacadaha dalka midowga jaamacadaha afrika iyo midowga jaamacadaha carabta waxay iskaashi iyo xiriir dhow la leedahay jaamacado badan oo caalamka ku yaala sida jaamacado ku yaala dalalka suudaan turkiga iyo Brazil sidoo kale waxay xiriir la leedahay macadyo caalami ah oo ku yaala dalalka Tanzania iyo Masar ujeedooyinka iskaashiga iyo xiriirku waxa uu yahay deeqa waxbarasho inay helaan ardada doonaysa inay master iyo PhD-ba ku diyaariyaan meel ka baxsan dalkeenna Soomaaliya jaamacaddu waxay bixisaa kulliyado kala duwan oo aad wax kaga baran karto gudaha dalkeenna Soomaaliya sida kulliyadda daaweynta iyo caafimaadka guud oo aad ku baran karto daaweynta iyo qalliimada guud oo 6 sano ah kalkaaliye caafimaad oo aad ku baran karto 4 sano cilmi baarista cilmiga shaybaarka fayadhowrka guud iyo sidoo kale cilmiga daawada dhammaantood waxaad ku baran kartaa 4 sano fursadaha shaqo ee jaamacadda waa dhakhtarka guud dhakhtarka takhasuska shaybaarka dowladda hay-adaha caafimaadka fayadhowrka iyo wacyigelinta kontaroolka daawada iyo sidoo kale cilmi baaris sare kulliyadda injineeriyadda iyo teknolojiyadda waxaad ku baran kartaa civil engineering iyo computer science and information technology oo 4 sano ah wuxuu qabtaa injineerku maxayse tahay fursadaha shaqo ee uu heli karo waxa uu heli karaa fursadaha shaqo ee kala ah naqshadaynta iyo dhisidda guryaha wadooyinka buundooyinka garoomada iyo wixii la mid ah oo badankooduba halbowlaha u ah nolosha aadamaha naqshadaynta iyo abuuridda ilo rasmi ah oo laga qaato korontada waxaa kaloo uu haystaa fursad ah samaynta dhammaan gaadiidka kala duwan ee dhulka cirka iyo badda soo saarista dhammaan macaadiinta qaaliga ah ee ku kaydsan dhulkeenna Soomaaliya sida shidaalka dahabka dhaymanka uraniumta iyo waxyaabaha la mid ah ku shaqaynta iyo samaynta tiknoolajiyada casriga ah oo loo adeegsado sida kombiyuutarada waxaa kaloo aad ka baran kartaa kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka daraasadda kulliyadda waxay ku salaysan tahay 4 sannadood oo aad ku baranayso dhaqaalaha economics maareynta ganacsiga PA xisaabaadka accounting maamulka bangiyada iyo sidoo kale maaliyadda bank and finance maamulka dawliga public administration ruuxii bartaa wuxuu leeyahay fursadaha shaqo ee kala ah aqoon-yahan dhaqaalo maamulo cilmi baaris sare diblomaasi sare maareeyo bangi maareeyo maaliyadeed xeeldheere ganacsi xeeldheere taxliiliye xogta iyo arrimo kale ujeedooyinka iyo hiigsiga kulliyadaha waxaa ka mid ah sare u qaadista aqoonta iyo farsamada dhulka iyo wax soo saarkiisa tusidda iyo taabsiinta ku dhisan tijaabooyin iyo tababaro cilmiga cusub ee la xiriira beeraha kordhinta wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha kulliyadda caafimaadka iyo xoolaha oo aad ku baranayso dhaqaalaha uu ku tiirsan yahay dalkeenna 60% Soomaalidu waa xoolo raacato waxaadna ku baranaysaa 4 sano oo kaliya oo aad ku qaadanayso 8 semester waxaana ku hor yaalla fursado shaqo oo aad u badan macadka cilmi baarista iyo tababarada tababaro ardayda abraar iyo arday kale iska kaashanayaan cilmi baaris heer dal iyo sidoo kale heer caalami faafinta natiijooyinka cilmi baarista abraar waa jaamacad la hubo adiga ayaa dooran kara Abraar University